السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي مرماريس وإذن سلامي كل جينا قلب وناكسن وحايدن كسو سلاما يا مقالة ذيدا فيدا وجناي مفهمتين ما أنتو حاروا ما دام عصر إيتهاي اسكجوغ حافظ حاسلا أصحاب هذا الشيء كير لو ذاك وقصر بدن مفهمتين وكاسا ديجي هنا ما هي وحير مفهمتين وحايدين هاي ما أنت الشيء قصر بدنا إذن وذا أصحابي marka qoslo waxa jeclaa in ay la share gareeyo bariya xoogo youtube ka soo furtay xataa waa ka caajisooleeyaan qofad laakiin hadda soo laabtay insha Allah markaan wixii ka dambeeyo waa ka shaqeyn doonaa insha Allah ma fahamteen war asxaabay soo dhawaada like ta share ta commentiga yaa subscribe ka lacag ma ah igu caabiya Allah yaqaliik ma fahamteen afcariga labada xafaniisana laga yaqaanaa ma fahamteen marka waxaa idin leeyahay asxaabey war badan hee haama buuxsho ma fahamteen sheekada iyo suguusiinaan filaa dhigihiina iyo amaahiya gabsaarka xataa sheekadoo diyaar u yahay fahamtoo soo dhacay marka waxaa idin dhahay sheeka hadda ka hor dhacday oo jirtay maan koobi waa taqaanin ma meesha dadka waalwaalan lagu xiro hadda ka hor maalin maamaha kamid dadkii waalwaalnaa qof kamid ah caafimaad helay markaas wuxuu dhahay inuu intoo doctorka u tagay wuxuu yiri doctor ana waa fiicanahay ma waalni in la fasaxaan rabaa marka mid kale waalan oo maskaxdiisa maqan tahay hadalkiis ninkaan maqlaay ma ogta markaas wuxuu dhahay doctorka ma fiicnaatay waayay waxa la tijaabo laga qaadaya macnaa in tijaabo lagu marsiiyo waay kadib waa lagu fasaxayaa ma fahamti waayuu dhahay marka fahamti ninkaan kale ninkaan wuxuu dhahayo asna dhaha koobi waa ma fahamti wuxuu dhahay asna doctor anna waa caafimaad mana caafimaad waa waalaya midka kale markaas waxa la adna ma caafimaad hay'adni tijaabo laga qaado soo bax labadiina waay labadii ma ogta meeshii waxa la galay oo la isku tijaabinaa ma fahamti midkii koowaad oo caafimaadka helay laga bilaabo ma fahamti waxa la lahay adii maadaama oo maskaxdaada ay joogto cadeysay waxa la lahay lacala markii lagu dhaho babaay lagu keeno qaabkee u samaysan lahayd Allah ninka caafimaadka qabo kii kale uu maqlayaa mogta kan wuxuu dhahalo inuu dhaho rabiyaa ma fahamtay koobi waa ma fahamtay markaas wuxuu dhahay ninkii caafimaadka qabo wuxuu dhahay doctore babaay hadii la ii keeno marka hore waa dhaqaa marka kale madaxan ka jaraa wa bacdeen oo dhahay miraha dhaxda ku jiro ka bixinaa hadaa rabo 4 gabal ka dhiganaa hadaa rabo 2 gabal ka dhiganaa waana cunaa ma fahamtay aw heelooga ninkaan oo maqlayaa mogti doctorka markuu wuxuu dhahay ninkii kale okay adii caafimaadkaada waa qabtaay yaa caalan faan soco ninkii wuu yaacay ma fahamtay aw heeloog waa xaalada asin kaal adne ay ma caafimaad qabtaa waa caafimaad qabaa 100% bahaye adna xaaladahay lacala hadii maroodi oo lagu dhiyo macnaa mis lagu horkeen maxaa ku sameyn lahayd Allah mogti heelo koob waa mogta ninkii kale koobi dhahe wuxuu dhahay aniga maroodi oo dhaan inta iska dhaqo haye madaxa ka jaro 4 gobol ka dhigo kula miraha dhaxda ku jira inaa iska bixi cuni la kula mis 2 gobol ka dhigi la maroodi ma la jari karaa ma 4 gobol 2 gobol la dhigi karaa waxa la soco meesha maskax ku mid sida koobi kala jira fahamtay asxaabta marka waxa rabay maanta galabtaan sheekadaas in ay la wadaago insha Allah sheekooyin kala qurux badan oo idin soo jeedi doona one life waxaan leeyahay waa idin jeclahay subscribe like share commentiga dhac ale ugu sii fahamtay waa walaashiina waan idin salaamaa insha Allah galab wanaagsan